waayahay daawada soo dhawow waxaan jecelahay inaan kula wadaago xogta ku saabsan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo warqad soo saaray ka uu ku ganaaxayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu sheegay ama ay sheegeen in ay sameeyeen arin xadgudub ah walibana uu kamid yahay Xasan Firimbi oo ah xildhibaankii gacanta u qaaday mid kamid ah ilaalada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya soo dhawow warkaas ayaan jecelahay inaan kula wadaago hadii taa markii kugu horeysay uu muuqaal ku soo gaaro like sar muuqaalka siina share garay page-kana follow dheh warqad ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulamada baarlamaanka lagu ka joojiyay muddo 2 bilood ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya qoraalka lagu sheegay in 2 bilood oo xiriir ah laga joojiyay fadhiyada golaha shacabka xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ku magac dheer xildhibaan Xasan Firimbi oo fal gacan qaad ah oo 27 bishii November u geystay askari ka tirsan ilaalada xarunta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa ganaaxyo isku jira jaris guno iyo ka joojin fadhiyada golaha lagu riday xildhibaano lagu soo eedeeyay sida warqadda ku xusan in ishor istaag ay ku sameeyeen kooramka golaha iyo sidoo kale koor imaanshaha xeer hoosaadka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya arintan ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay xarunta golaha shacabka ama xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulamo xasaasi ah ay ku yeelanayeen xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho oo ay ku ansixinayeen qodobada doorashooyinka Soomaaliya oo uu ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan kuwa mucaaradka ayaa si weyn ugu soo horjeestay ansixinta iyo sidoo kale fadhiyada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelanayeen xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho iyadoo mararka qaar arintaasi ay tagtay in gacan qaad ama gacmaha la isla tago mid kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaana gacanta u qaaday ilaalada ciidanka ilaalada halkaasi ku sugan ee golaha shacabka ee uu gacan u qaaday xildhibaankaas oo ah Xasan Firimbi shalay ay ahayd markii xildhibaanku uu raaligelin ugu tagay askarigii uu gacanta u qaaday xildhibaanku ayaa haatan warqadan ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya lagu joojiyay in xildhibaanku uu 2 bilood uusan ka soo qaybgali karin fadhiga xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelanayaan xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa waliba fadhiga lixaad ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada qaar ayaa si weyn ugu soo horjeeda ansixinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku meel marinayaan ajandooyinka arrimaha doorashooyinka ee qodobada hor yaala xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday in waqtiga fasaxooda bil kamid ah ay siiyaan si dalka ay u gaarsiiyaan ama ay u diyaariyaan in dalka uu ka qabsoomo doorasho qof iyo cod ah ka uu madaxweynaha Soomaaliya ka codsaday ay xildhibaanada labada aqal baarlamaanka Soomaaliya qaarkood ay ogolaadeen ay u ansixiyeen in codsiga madaxweynaha ay aqbalaan balse xildhibaano ka hor yimid arintaasi ayaa ka sameeyay arin fowdo ah xarunta golaha shacabka ee Villa Hargeysa iyagoon halkaasi buuq iyo sabaxan iyo Firimbi inay u isticmaalaan ansixinta qaar iyo marka uu gudoomiyaha golaha shacabka uu hadlayo ay Firimbi iyo garaacista miiska ay sameeyaan iyagoon arintaasi ku sheegay inay ka soo horjeedaan ama ay sharci darro tahay arinta ay wadaan golaha shacabka iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya arintaas ayaa keentay in xildhibaanadan la ganaaxo walibana ay gudoomiyaha golaha shacabka warqad ka soo saaro in xildhibaanada qaar gunooyin laga jaro qaarna laga mamnuuco inay ka soo qayb galaan fadhiyada lixaad ee yeelan doonaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya hadaba sidee u aragtaa ganaaxa ka soo baxay ama warqadda ganaaxa ay ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu ganaaxay xildhibaanada sameeyay gacan ka hadalka ee qaar ka hor yimid xeer hoosaadka iyo sidoo kale sharciyada xeerarka xildhibaanada golaha shacabka u yaala iyo qodobada ku xusan halkaasi ee lagu ganaaxay waad ku maasan tahay daawashada muuqaalka hadii ay tahay markii ugu horeysay like star siina share garay muuqaalka page-kana follow dheh